fanka inkastoo wax lagu tusaaleeyo laguna madadaaliyo shacabka haddana fanaaniinta fanka iskula jirta qaarkood way iscalmadaan kadibna way isguursadaan xasuuso hore iyo sidoo kale kuwa hadda jira ayaan idin soo gudbi doonaa marka hore falowgaree like saar kadibna shargaree page-keena si asxaab badan uu gaaro muuqaalkan waxaa jira fanaaniin badan oo fanka magac ku dhaxle oo in ay iska heleen kadibna isku dhaxay magaca iyo sidoo kale darajada ugu weyn ee fanka laga gaaro waa inay bulshada ku hadal hayso iyagoo ku hilooba kolkii ay ku waayaan si weyn hore ugu wada heesahaga markii ay maqlaan in ay isguursadeen laba fanaan oo agtooda ku weyn waa dareen farxadeed oo laba jibaaran in fanaaniin isku dhaxaan hadda ma aysan soo bilaaban oo horey way u dhaceen tusaale ahaan fanaanada caanka ee sumcadda iyo maamuuska u dhaxlay fanka Soomaalida ee maama Maryan Mursal Ciise waxay u dhaxday fanaanka codka halaasiga ee Legend Axmed Cali Cigaal labadan fanaan ayaana waqti iyo waayo wada qaatay iyagoo alla ugu deeqay caruur oo mid kamid ah wiilashooda uu yahay fanaan heesaha qaada waana Kunciil Axmed Cali Cigaal xilligan waxaa sidoo kale jira fanaaniin nolol wadaaga haddana masraxyada ka soo wada muuqda iyagoo heesahooda aad loo xiiseeyo inkastoo fanaaniinta qaar ay si fudud ku kala tagaan oo la yaab iyo sidoo kale fajac dad badan ku noqoto haddana waxaa jira fanaaniin nolosha horumar ka sameeyey oo qanaaco ku wada nool sida la dheehan karo waxaana ka mid ah fanaaniintaas Cabdifataax Yare iyo sidoo kale Shaadi Sharaf oo sida dad badan arki karaan kaftanka iyo isfahamkooda uu yahay mid sareeya baraha bulshada gaar ahaan YouTube-ka ayayna aad diirada u saaran iyagoo dadka halkaasi ka madadaaliya Axmed Weli Furinle iyo sidoo kale Asma Love ay dadku u arkaan sidoo kale inay yihiin dad fanka ku wada jira haddana waqti wanaagsan isla qaadanaya waxa iyagana la mid ah Saxardiid Maxamed Saxardiid SMS iyo sidoo kale fanaanada codka Tulmoon ee Ikraan Maxamed Caraale oo iyaguna ah laba fanaan oo nolosha wadaaga waxaana sidoo kale ka liidan xilligan Mursal Muuse Cumar iyo sidoo kale dhalfaneed Hodan Cabdiraxmaan Dheere oo labaduba ah fanaaniin hoosahooda dadku aad u jecel yihiin haddana isku dhaxa waxaa sidoo kale fanaaniinta nolosha wadaaga ka mid ah musishiga caanka ah ee la yiraahdo Maftuux Cadceed iyo sidoo kale Aragsan Cabdinaasir oo iyaduna ah fanaanad heesaheeda aad loo xiiseeyo haddana haddii aad hore u sii tallaabsato Najma Cabdinaasir Ciise oo loo garan og yahay Najma Nashaad inkastoo waqti sidaas aan u dheereen ay kala tageen haddana waxaa loo diiwaan galiyay laba fanaan oo isku dhaxay welibana alle uu ku irsaaqay ubad waxaa sidoo kale ka mid ah fanaaniinta isku dhaxay ee haddana kala tagay waqtiguna kala geeyay Bashiir Hanuuniye iyo sidoo kale Farxi Fiska Maxamed Aalta iyo Hodan Cabdiraxmaan oo hadda ah xaaska Mursal Muuse Yurub Cabdi Maxamed Geeniyo iyo sidoo kale Cabdifataax Yare oo hadda ah Sayga Shaadi Sharaf Khadra Saliimo iyo sidoo kale Mursal Muuse oo hadda ah Sayga Hodan Cabdiraxmaan Dheere fanaaniintii isguursaday waxaa ka mid ah Axmed Weli Furinle oo musician caan ah iyo sidoo kale Nimco Dareen oo ah fanaanad heesaha qaada amba ku luuqaysa Karag oo laba saar Cabdiraxmaan Koronto iyo sidoo kale fanaanada Aamino Amuura ayaa ka mid ah shakhsiyaadka xeendaabka fanka ku jira ee isguursaday laakiin bishan gudaheeda waxaa tirada lagu daray Sharma Boy iyo sidoo kale Milyumaanka oo ah laba fanaan oo xilligan yahay xilligoodii fanaaniinta qaar ayaa badana lagu dhaliila in ay si fudud ku kala tagaan haddana ogaanshaheeda ayaa si fudud bulshada ugu dhaxfaafta maadaama ay yihiin dad kaamirooyinku hayaan amuurahooda gaarka ahna qaarkood si fudud bulshada u ogaan karto sidoo kale waxaa jira heesaha qaar in laga sameeyo wax si toos u taabanaya sidaasna bulshada ku garato kana tusaale qaataan xaaladda markaasi soo korortay inkastoo malada dadku noqon karto mararka qaar mid fashilanta inkastoo calafku yahay mid go'aamiya qofka aad nolosha la wadaagi doonto haddana adiga sidee bay kula tahay isguursiga laba shakhsi oo ku wada jira xeendaabka fanka